intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobadii warka ugu doorka roonaa markana warkii oo fidsan. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ugu baaqay in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dabeelihii dhawaan ku dhuftay deegaano ka tirsan Puntland. waxa uu dhanka kale ugu baaqay beelaha ku diriraya gobolka Shabeellada Dhexe inay degdeg colaadda u joojiyaan. wariyayna magaalada Muqdisho Cabdishakuur Shakra ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu kaga hadlay dhibaatooyinka baaxadda leh ee ka dhashay dabaylaha dhawaan ku dhuftay deegaanada maamul goboleedka Puntland. madaxweyne Maxamuud ayaa ugu baaqay beesha caalamka dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaalida in wax laga qabto dhibaatooyinkaasi, gaar ahaan telefishinada iyo goobaha kale sida masaajidda ayuu ugu baaqay in yabaha ay wadaan ee lagu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ay u bedelaan dhibaatooyinka ka jira deegaanada gobolada Soomaaliya. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogto dalka iyo dibadiisa gaar ahaan shacbiga Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Puntland waxaan uga tacsiyadeynaynaa dadkii faraha badnaa masiibadii rabbaaniga ahayd ee dhacday ku dhintay aad iyo aad ayaan uga xunnahay. waa ka tacsiyadeynaynaa waxaan leenahay dhammaantood samir iyo iimaan Allah naga siiyo. inta dhaawacaana ilaahay ha bogsiiyo, intii hantiyo ay dhaaftayna bedelkeeda oo khayr qaba Allah siiyo ayaan leenahay. muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaan u muujino dadkeena inaan arintaas xanuunkeeda aan la wadaagayno waa koow. midda labaadna wax kasta oo aan kari karno in aan maxaan ku iraahdaa aan dawladda Soomaaliya dhinaceeda ka socdo iyo shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda jamhuuriyadda ku nool intaba in maxaan ku iraahdaa gurmad intii suurtagal ah lala gaaro dadkaas haddii la yiraahdo. sidoo kale beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in dadkaasi ay degdeg loo soo gaaro dhibaatadaas ay dhacday si degdeg ah wixii allaalay wixii suurtagal ah in lala soo gaaro ayaan hay'adaha samafalka adduunka dalalka maxaan ku iraahdaa caalamka ay horumaray walaalaha muslimiinta caalamka dhammaan waxaan ka codsanaynaa in loo soo gurmado dadkaas dhibaatada dhacday. dhibaatadii weli raadkeeda oo sii socdaa, dabaylihii way socdaan. in marka gurmad degdeg ah caalamka uu la soo gaaro na waa codsanaynaa. telefishinada yabaha iyo ballanqaadyada ka socdaa ama masaajidda lagu dhisayo ama shakhsiyaadka Soomaalida ee xanuunsan danyarta lagu kaalmaynayo waxaan leenahay ha loo wajaho markaan kaalmada iyo yabaha iyo deeqahaba meesha muxuu dhibaatooyinka ay ka jiraan. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii dhawaanahan ka jiray gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen colaado beelo walaala u dhaxeeya iyo fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle. dadka gobolka Shabeellada Dhexe khaasatan beelaha meesha ku dagaalamaya waxaan leenahay walaalayaal joojiyo colaadda, dagaalka la joojiyo. ilaa iyo hadda wax laga faa'iido ma jirta. wiilalaa ku dhintay, tuulooyina ku baaba'ay, hanti badan lagu baabi'iyay, iyadoo dhinaca kalena dalkii ay duruufo muxuu ahaay masiibo oo rabbaani oo daad fatahaad uu ka haysto in dhinaca kalena xabad iyo colaad ay kaga socotahay waa arrin aad iyo aad u dhib badan. waxaan leenahay colaaddaas ayadana ha la joojiyo. mar kale dadka Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibadiisa waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya degan ee ku nool dalka ee dhibaatooyinka ay soo gaareen in loo gurmado. Cabdishakuur Xuseen Maxamed, Cabdishakuur Shakra, Kalson TV, Muqdisho.